بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا كسو دبادة شرالكينا هبة محمد أحبابي آد بان دي سلامي دمانتينا ميل بدوني داد كجوكتين خير الله يدين كورزاقو بإذن الله كريم. ما أنت موضوع إنه وحوي هاي هنقونين دادك دادك اسكو ديرا إي ورك أوكلاجية سبحان الله. يعني قف باور قف ولالكيس كقاضية قف كلا وإسكو وناكسانايين قف كان أيو أوجينيا cusbo iyo waxbuu kusii darayaa yacni fitna iyo wuxuu ka shaqaynayaa xumaan iyo labadaas qof siday u kala fogaani lahaayeen. maxaad ka dhaxlaysaa markaa laba qof oo walaalo aad isku dirtid ama madaxaad isku gelisid ood u sheegtid waxaanan faa'iido lahayn oo yacni aad u sheegtid wax labadan qof hadhowta iskaga soo horjeysanayaan oo colaad ama yacni ay uqdad iskugu qaadayaan ood u kala fogeynaysaa. yacni labadii qof oo walaalaha isku wanaagsanaa ama saaxiibaha ahaa ayaa waxaad u kala geynaysaa warar aan kala wanaagsanayn. kan qofkan kale warbaad ka qaadaysaa kii kale aad u geynaysaa, kii kale warbaad ka qaadaysaa kan kale aad u geynaysaa. labadii qof waxay noqonayaan laba qof oo haddaysan ka fiirsanin aad u kala fogaada. adiga marka maxaa faa'iido oo kugu jira inaad laba qof oo walaalo ah ama laba qof oo saaxiibo ah oo asxaab ah inaa yacni aad kala fogeyso? faa'iidada kugu jirto maxay tahay? waa inaa noo soo sheegtaa waxa faa'iidood ka helaysid. لأن فائدة ما جرت ماشاس wax faa'iido la dhaho ma lahan ilaa inaad dembi aad kordhisatid ama aad dembi ka dhaxashid mooyaane iyo ceeb iyo fadeexa. لأن beenta aad baa loo soo qaban og yahay oo hadhowti labadaas qof oo walaalaha ahaa way isku soo noqonayaan ka dambana adiga ayaa meeshii ku fashilmaysa. fashil ayaa dhacaya. ilaahu hana fashilin. marka waxaa wanaagsan mar walbaba meeshii aad xumaantaas ka shaqayn lahayd inaad wanaag ka shaqaysid. wanaag inaad ka shaqaysid. maalan laba qof ayaa colaad ka dhaxaysa ama isdagaalsan ama isku xun oo isgafay oo maxaan ku rahdaay waxay rabaan baa isku qabsadaan waayo adduunku waa iska mashaakil badan yahay. labadaas qof inaad yacni maslaxadoodii ka shaqaysid, inaad kala fogeysid maaha, inaad maslaxadoodii ka shaqaysid, inaad isku soo dhaweysid. halkaas waxaad ka helaysaa ajir aad u badan. yacni inaad heshiisisid oo dhahdi issaamaxa iscafiya wax faa'iido ma lahan inaad qalbiga wax iskugu haysiin. adna waxba kuu soo kordhin mayso, asna waxba u soo kordhin mayso. bad xiriirkiinii unbaa yaraanaya. yacni walaaltinimadiinii baa halkaas ku go'aysa. haddaa labadii qof ay isku haystaan ma aragtay xumaantii ay isku hayaan waxaa waaye walaaltinimadii ayaa sii kala fogaanayso. laakiin haddii lis cafiyo wixii meeshay ka baxayaan. marka adiga qofyo haddaad noqotid ka waran qofkii labada qof isku soo jiidayay oo maslaxada iyo khayrka ka shaqaynayay haddaad noqotid ka waran soo arrin aad u wanaagsan ma aha. meeshaad noqon lahayd inaad kala fogeysid oo dadkii isku wanaagsanaa aa war xun aad u kala geysid. ka waran haddaad noqotid mid ka shaqeeya oo wanaaga, mid wanaaga ka shaqeeya oo jecel labadan qof ama dadkan inay isku wanaagsanaadaan. subxaan allah, dad waxaa jira jecel xumaanta. dad waxaa nagu dhex jira subxaan allah jecel yacni in la isku xumaado, in la isdagaalo, in ma aragtay dadkii ay fitna ka dhexayso, in macnaha dad noocaasaa jiro. soomada arkin dadkan hadda qabyaalada iyo balaayada ka sheekaynaya oo kale. soo dad ma jeclo dad dabka huriya, dabka shida soo ma jiraan. iyo dad ahaa war ilaahay ka xishooda inaga dhaafa. ibni aadamku marka sidaas iskugu jiraan. dadna waxay jecel yihiin dadka walaalaha ah ama labada qof oo saaxiibka ah inay wanaag ay yacni dhexdhexaadiyaan oo ay wanaag u kala geeyaan. xitaa waxaa dhici karta qofka wanaagsan isagoo qofkaas wuxuu laga tirsanaya inuusan u sheegin oo wanaaggiisa uu sheego. laakiin ka waran adigoo wax wanaagsan lagu sheegayo oo wax wanaagsan lagaa sheegayo oo qofkaas walaalkaada lagaaga sheegayo adigana aad xumaan ku bedesho dhahdo maya subxaan allah ma qofka sidaas ah. markasta waxaa wanaagsan dhinaca wanaagsan inaan wax ka eegno. marka ha noqonin qof yahow dadka kala fogeeya, dadka isku dirdiraha yaqaana ha noqonin ee waxaad noqotaa dadka isku soo jiida dadka walaalahooda ah ee musaamaxa ka shaqeeya. inay dadka iscafiyaan, inay is saamaxaan, ya dadka wanaaga dadka u kala sheega. yacni qofkaas uu wanaagsan yahay maasha allah adig wanaag buu kaa sheegay bedelkaad oran lahayd yacni waa qof xun, waa qof sidaas ah, waa qof kidaa ah, waa qof kan ah.
لأن قف جعل ما لهن قف نقف كستو وحو جعلها إنه قف وناكسن نقضه بس قفك إلهي باكدقو قف وناكسن مو قرأتي لكن ذلك هو مهم جدا لكن وحا وناكسن مر والبابا meeshaad adiga xumaan gudbin lahayd iyo isku dir aad gudbin lahayd inaad khayrka ka shaqayso waa wax adiga aakhiradaada iyo adduunkaada u wanaagsan aan noqono marka kuwa wanaaga ka sheekeeya kuwa aan ma aragtay ceebaha walaalahooda faafinin kuwa aan maxaan ku yiraahdaa yacni aan noqonin dadka isku ma aragtay jabiya subxaan allah aan noqono marka dad wanaagsan biidni illaahi kariim إلهي وناجها نوافجيو ربي خيرها نوافجيو إلهي شرطها نجيس مريو إلهي كوا لا ظلميو يا يعني دد وحاجر ددك ظلمية كواس إلهي نجا ديجو أكليست أنت أديجا أنت هذا واحد ظلمين لهيت أنا وحن قوائن أغذل ظلميو لأن مو ونعسنا يعني قف مسلمة إنات حد كحد جدبته وحفي عن معها مقتاي أديجا لو واحد جدبه هدي الربو بس إلهي وحان كبرنا سبحانه وتعالى أننا نوح إنه واحد قد إلهي إنه سنتصن أنا أركن بإذن الله الكريم أننا نكون نفط وذا كأذك أو عرب كوذا كأذك إلهي إنه نقدقه وأن ظلمك كشقين يعني إلهي إنه نقدقين يعني كوا ظلمك كشقي يعني نقدقه كوا مصلحة إيو وناقة إيو محان كراضايا كشقي إلهي إنه نقدقه قلبي قلنا ربي إنه نظيفيه وحصل محائم ay ku imaan kartaa inuu qalbigaadu nadiif uu yahay marka ilaahay qalbiga hanoo nadiifiyo khayrka rabbi hana waafajiyo shartana ilaahay hana gismariyo ilaahay inta dhunsan rabbi ha soo hadeeyo annaga qudheena ilaahay hana hadeeyo dariiqa wanaagsan hanagu hadeeyo khayr badan ayaan idinka tagayaa salaamu calaykum waraxmatullaahi